miyaad iga aaminaysaa haddii aan ku dhaho diinta islaamka markii ay caqabada ugu culus ay wajahaysay, sidoo kale saxaabadii nabigana sallallahu alaihi wasallam ay dhibaatada ugu badan ay kasoo wajahday dhanka gaaladii Quraysheed iyo ehelkii ay dhex deganayeen, hogaamiyihii ugu horeeyay oo awood dhuleed iyo awood ciidan ba haystay ee saxaabadii nabiga magangeliye siiyay kusoo dhaweeyay dhulkiisa inay halkaasi ku noolaadaan, diintana hore usii wadaan, masaajida dhisaan, halkaasi si xorriyadana ay ugu noolaadaan. Wuxuu ahaa hogaamiye jooga gudaha qaaradda Afrika. Waqtigaasi waa hijradii koowaad ee muslimiinta oo markaasi ay muslimiintu usoo tallaabeen dhinaca qaaradda Afrika iyagoo kasoo tallaabay biyaha badda cas. Waqtigaasi hogaamiyahan oo isagu aanu ahayn islaam ahaa hogaamiye kristana ayaa markaasi magangeliyada sidaasi ku siiyay. Intii ay joogeen gudaha qaaraddan Afrikana waxay hirgeliyeen muslimiintu inay dhisaan masaajidada ugu taariikhda badan dunida oo dhan iyo gudaha qaaraddan Afrika oo leh qibladii hore ee Baytul Maqdis. Sidoo kale muuqaalkeena maanta oo koobnaan doona waxaan rabaa inaan kugula wadaago raadadkii ganacsiga ee dadyowgii ka imanayay qaaradda Asia ee isugu jiray Farisiyiinta iyo dadkii bariga dhexe ka imanayay Carbeed. Ganacsigii ay lahaayeen dadka Soomaalidu ay ka mid tahay iyo dad kale Afrikaanka ee gudaha qaaradda Afrika sidii uu u fududeeyay in diinta islaamku ay si sahlan ugu dhex fido gudaha qaaraddan Afrika. Qaaradda Afrikana taariikhdeeda iyo dhaqankeeda wax fara badan sidaasi ay isku bedelaan. Waqtigani gudaha magaalada Maka muslimiinta waxaa ka haystay culays aad u badan kaasoo sababay in la waxyeeleeyo, in xabsi la geliyo, hantidooda la dhaco. Culays ay nooca ayaa kaga imanayay markaasi gaaladii reer Quraysheed. Taasi waxay sababtay in ay raadsadaan meel kale oo ka baxsan dhulkan si diinta islaamku badbaado ay u hesho, horena loogu sii wado oo dadyo cusub markaasi la gaarsiiyo. Culayskaasi wuxuu sababay in Nabiga sallallahu alaihi wasallam uu saxaabadiisa u sheegay inay dhanka qaaradda Afrika u fakadaan. Nabigu wuxuu sheegay in halkaasi uu joogo boqor cadaaliya oo agtiisa dadka lagu dulmin. Waxaa la oran jiray boqorkaasi Arma, sidoo kale magaciisa saddexaad wuxuu ahaa Ashama ibn Abjar. Gudaha islaamka ama magaca uu islaamka gudihiisa caan ka yahayna waa Najashi oo boqorkii Najashi haddii aad maqashid. Waa boqorkani oo ka talinayay markaasi dhulkii la isku oran jiray boqortooyadii Abyssinia ama dhulkii Ardul Habash. Madaxdii magaalada Maka ama gaaladii Quraysheed waxay soo direen qaar ka mid ah iyagoo usoo diray dhanka boqorkii markaasi Najashi ee joogay gudaha qaaradda Afrika, gaar ahaan bariga qaaradda Afrika ama boqortooyada Xabashida maamulayay. Boqorka markan fariinta ay wadaan waxay ahayd in la soo celiyo saxaabadii Nabiga sallallahu alaihi wasallam oo waxay dalbanayeen in lagu soo celiyo magaalada Maka iyo dhulkii Quraysh dega jirtay si ay u sii dhibaateeyaan. Boqorkani wuxuu dhageystay ergadii ka timi gaalada Quraysheed iyo saxaabada ama muslimiintii markaasi joogay bariga Afrika. Labadii markuu dhageystay wuxuu gartiisiyay saxaabadii Nabiga sallallahu alaihi wasallam wuxuuna u ballan qaaday in magangeliyo dhulkan ay ku joogi karaan, gaaladii Quraysheedna in aanu celinayn ayuu u sheegay saxaabada Nabiga sallallahu alaihi wasallam. Marka halkani waxay noqotay nasri ama guul u soo hoyatay muslimiinta oo markaasi tamar badan aan lahayn. Gudaha qaaradda Afrika waxay noqotay meeshii hogaamiyihii ugu horeeyay awood leh uu taageero muslimiinta markaasi oo aan awood badan haysan, boqor markaa taageeraya aanu jirin. Qarnigii 7 iyo wixii ka horeeyay gudaha qaaradda Afrika waxaa awood badan lahaa markaasi boqorro uu ka mid yahay boqorkani geeska Afrika jooga ee Najashi iyo sidoo kale boqorro kale oo iyaguna joogay galbeedka Afrika oo markaas iyaguna hanti badan, dhaqaale badan, dahab iyo ganacsi markaas iyaguna dhulkaasi ku haystay. Marka xilligan qaaradda Afrika gudaheeda waxaa ka jira diimo kala duwan oo ay ka mid tahay diinta Kiristaanku oo iyo diimo kale oo markaasi iyaguna ay haysteen dadkii dhaladka ahaa ee asal ahaan kasoo jeeday gudaha qaaraddan Afrika. Maadaama boqorkii Najashi ee joogay geeska Afrika ama aan isku soo duubay gudaha qaaradda Afrika ay muslimiintu ka heleen garab iyo meel ay kaga badbaadaan gaaladii Quraysheed, waxay awood u heleen inay taagaan masaajidkii ugu horeeyay ee laga taago qaaraddan Afrika oo laga taagay gudaha geeska Afrika. Masaajidkaasi waxaa laga dhisay magaalo xeebeedka Massawa oo ku taala dhulka maanta la yiraahdo Eritrea. Halkaasi waxaa laga dhisay masaajid loo bixiyay As-Sahaba. Masaajidkaasi waxa uu leeyahay
qibladii hore ee Baytulmaqdis. Masaajidkan laga dhisay gudaha dhulka maanta Eritrea lagu magacaabo markaasina uu xukumayay boqorkaasi Najaasi. Waxaa laga dhisay sidaan soo sheegnay magaalo xeebadka Massawa. Masaajidkan taariikhda la dhisay waxa weeyaan 615 ilaa 620 intii u dhaxaysay oo ah muddadii ay hijradii koowaad dhacday inta aan la gaadhin hijrada labaad oo ah hijradii Nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisu ay kaga hijroon doonaan magaalada Makka una hijroon doonaan magaalada Madiina. Marka masjidkani wuxuu leeyahay taariikhda sidaasi u fog ee dhulka muslimiinta oo dhan ah masaajid taariikhi ah. Sidoo kale masjidkani waxa uu leeyahay qiblada hore ee Baytulmaqdis markii loo tukanayay inta aan la soo rogin in loo tukado dhinaca magaalada Makka. Marka aynu eegno dhinaca dhulka Soomaaliduna sidoo kale waxay ahayd meelihii ugu horeysay ee diinta Islaamku ay ka timaado ama dhinaca qaaradda Afrika markuu soo tallaabay meelihii ugu horeysay ee laga soo dhaweeyay diinta Islaamka waxaa ka mid ahayd dhulka Soomaalida. Magaalo xeebeedka dhinaca waqooyi dhulka Soomaalida ee magaalada Seylac waxaa ku yaala masjid taariikhi ah. Masaajidkaasi waxaa la qiyaasaa in la dhisay xilligii hijradan koowaad ee saxaabadu ay yimaadeen dhinaca geeska Afrika ilaa wixii ka dambeeyay hijradii labaad. Marka masaajidkan waxaa lagu qiyaasaa 615 ilaa 627 in la dhisay. Maadaama halkaasi ay ahayd xeebta gacanka cadmeed waxaa iman jiray ganacsatadii Islaamka ama muslimiinta ahayd oo isugu jiray Carabta, Beershiyaanka. Deetana halkaasi waxaa jiray ganacsi aaminaad leh iyo kalsooni oo dadka halkaasi iman jiray waxay arkeen in dadkan yihiin dad aaminaad leh in lala ganacsadana ay fududahay. Taasina waxay fududeysay in diinta Islaamku ay ku fido qaab isdhexgal ah, dadka halkaasi joogay isfahmaan diintiina sidaasi ay u fido. Marka dhulka Soomaalidu waa meelaha ugu horeeyay ee qaaradda Afrika ama dunida Islaamka oo dhan meelaha ugu horeeyay ee diinta Islaamku ay si nabad ah ku timid dagaal aysan ku iman. Marka magaaladan Seylac waxaa ku yaala sidoo kale masaajid taariikhi ah oo masaajidka hore ee ku yaala magaalada Massawa ee Eritrea taariikh ahaan noqonaya kusoo xiga. Masjidkan waxaa la yiraahdaa qiblateynka. Sidoo kale wuxuu leeyahay masaajidkaasi labadii qiblo. Magaca sababta lagu bixiyay qiblateynkana waxa weeyaan wuxuu leeyahay qibladii hore ee Baytulmaqdis. Markii dambe ee loo tukaday dhinaca magaalada Makkana waxaa loo sameeyay qibladii kale ee dhinaca magaalada Makka. Haddii aad ilaa halkan muuqaalkeena ila soo gaadhay waxaan kaa codsanayaa channelkeena subscribe saarto haddii aad asxaabteena ka mid tahayna muuqaalkeena like saar wixii aragti iyo faalla ah na dhanka commentiga nagula wadaag. Mahadsanid.